magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa dhawaanahani shacabweynaha magaaladu ay sameynayaan dhismayaal kala duwan oo dhanka horumarka ah. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Salebaan Diiriye Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiska gobolka Sool ayaa waxa uu ka hadlay horumarka dhanka dhismayaasha ama gobolka Sool hadii aanu nahay maamulka gobolka Sool markaan ka warramo xaalado badan oo gobolka ah maanta heerka uu marayo sida uu yahay boqolkiiba boqol waa fiican yahay waxa soo noqday dib u dhiskii dalka aad iyo aad waxa mid hiibo ah hadda waxa socda airportka laamiga airportka oo maayirka dawladda hoose iyo hadii la hayd maayo hawsha ayna aad uga qayb qaateen oo arinta ay wadaan haddana shaqadeeda ay socoto waxa kale oo jira guryo badan oo la dhisayo oo haatan aad iyo aad yana muhiim u ah ama dan gaar ah noqoto ama dad jimla ah noqoto haatan yana aad iyo aad muhiim u ah dhismayaasha aad u ballaaran oo ka socda magaalada ama kuwa waaweyn suuqa dhexdiisa noqdo oo dhul badan oo walba iska sandaqadii waxa aad loo burburiyo kulay yana dhismayaal fiican aad ka socdaan waxa ka socda dhismayaal fara badan oo hadda magaalada koonaheeda oo aad iyo aad u ballaaran oo yana ka socda waxa kale oo jirta shirkadahaas oo yana kaalmihii ugu fiicnaa ugu muhiimsan hadda yana ka wado oo magaalada ka wada ama ha noqoto qalabeynteedii wixii ha noqoto yana aad iyo aad yana muhiim u ah marka boqolkiiba boqol marka la isku doodo magaaladu horumarkeedu waa fiican yahay nabadgelyadeedu waa fiican tahay sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin ganacsatada iyo shirkadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood ay gudaha magaalada ku soo kordhiyaan dhismayaal kala duwan kuwaas oo wax ka bedelaya dhanka bilicda. gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay maamulka cusub ee gobolka Sool laga dareemayay isbedel dhanka dhismayaasha iyo horumarka. geesta kalena waxa uu ka hadlay gudoomiyuhu qayladhaantii abaaraha ee dhawaanahani ay soo dirayeen deegaanada kala duwan ee gobolka Sool ay kaga hadlayaan xaaladda gobolka Sool ka jirta. waxa aad looga cabanayo waa abaaraha iyo hadii la hayay biyo la'aanta iyo kulay waxyaalo badan oo deeqska qotal daruuriga dadka dhexdiisa ha noqoto oo riiqii abaarihi hore iyo waxyaalo fara badan baa wali dadka dhageysa ka sii qaylinaya marka aad waxaan u codsanaynaa dawladda ha noqoto ama hay'adaha deeqda bixiya ha noqotee in aad iyo aad loo eego gobolka Sool iyadoo xaqiiqo runtii marka ay noqoto gobolada Soomaaliland goboladii aad kale dib hore ugu yimi ay tahay marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo inuu isoo jeesto haatan isagoo walba soo jeeday haddana in aad iyo aad ilgaar lagu eego Abdikariin Olol SBC magaalada Laascaanood.